دكد ير إن تكون استوى حرام مرة كميدا بالغ روحنا كتران تراغ مرة بالغ يا بروح بهنا أمريكان كيس إنك عليسو ماشي أنا أمريكان بالله وتلقلي صادرت هبيراته وحلم ضد بنتي وإمرك جوري جود الإنسان هرت هذا لقى يا أمدكم نقول أمدكت سيد سايان حرام ويا ما حتى شيء كعادي وحرام إن ضدك شرع جود كبر رجال ولا جام مرمان اسمها أيضا اللهين هدي أو حاجة وددي وواسع أكثر فرفريسنا يسوع لقوم الديدين لكن بشرط وإن ضدك مرة هي أذن ابني وإن عليلي كوكينين وإن ضد كوكينين أما هداتي لهذا بدو وضد أحد وكوك عصن أما وضدي أول كهرباء عليلي أهي أنت أعطينا عليك كنا نعرف تبغى وضدي عليلي نقطي ما يا لما أقول الشريعة الإسلام كم أقول جناعسي النوع عاصنا وحرام أدتك هو مقران قد مركين نقطه هدي بعد بابوك يسوم مري وجوكو يرهدو حتى الروح هدوك إسقنين جكت أو يرهدو إسقنينه وعربك أو جراحة سجارسيو فوق بالله عدل هذا اللي يقوله هدوك جو عربك حتى سجل اللي يقوله الدنيا خرب بالله عدل هدو روح كوكفو أو كوجبو السجل اللي يقوله هدو بابور جك يرهدو الذي قاده السجل اللي يقوله هدي ما أنت أن لقاك جوين هيني أو عدك دبتها جن أما مامل أما كلا أو ضنين يسونجرين الله سوي شيء سمو لا تأخذه سنة ولا نوم ما أنت مالنا أتكتب درنت اللي جايين هيا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحن جعل الله إمانتا إنا وحوغا كهذا الله أنصوغا ذنه أحكامتا شريعة كؤادا ودوينك هديتا ودوينكو إن لا سمايو ولا بحيو برشدي ود الله سمايو يا هديتا wadooyinka intifaacsigeedii si loo intifaacsan lahaa iyo haday tahay wadooyinka xuquuqdoodii oo la ilaaliyo intaba xagga sharciga iyo xagga xisbigaba labadaba aad baa loo adkeeyay arintaas una adag tahay marka dadka meel kasto ay joogaanba miyi magaalaba sideedaba wada la yiraahdo lagama maarmo wadadu wax nolosha bani aadamku ay ka maaranta ma aha waxay ka mid tahay wadadu daruuriyaadka nolosha bani aadamka daruuriyaadka shayga aan laga maarmin nolosha bani aadamka ayay ka mid tahay wadadu saadarteed shariicada islaamkuna way ilaalisay hadee adduunkuna dhammaan wuu arkay muslim iyo غayr muslimba wada inaan laga maarmi karin marka xuquuq iyo nidaam baa loo samaystay labadaba marka in la ilaaliyo laga maarmaana shariicada islaamka haddaan ku hormaro wadadu waxay ka mid tahay tiirarka waaweyn ee shariicada islaamku ay ictibaarka siisay iyo ka mid tahay hadda nabigu sallallahu alayhi wa sallam iimaanka ila ugu sareeyay diinte meesha ugu sareysa iimaanku ahaa wuxuu ka dhigay wadada nabigu sallallahu alayhi wa sallam oo la ilaaliyo wa shu'batun min shu'abil iimaan inay tahay nabigu caday alayhi salatu wasalaam wa kula xadiiskii saxiix aha iimaanku waa dhowr iyo 70 ama dhowr iyo 60 fa afdaluha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha shu'abtaasna imaadatu adaa ani tariiqi imaadatu adaa ani tariiqi jidka oo laga fogeeyo wada marka wasaqda iyo xumaanta iyo wixii muslimiinta dhibi lahaa oo dhan kaasa iimaankii kamid nabiga sallallahu alayhi wa sallam marka wadadu shay ciyaar oo caadi ama takala nabiga sallallahu alayhi wa sallam xadiiskii sahih muslim wuxuu yiri ummadayda acmaashadii baa la isoo bandhigay kaadii xumaa iyo kaadii samaa labadaba ummadda muhammadiyada acmaashadii yalla isoo bandhigay nabiga sallallahu alayhi wa sallam acmaasha kaadii samaa iyo kaadii xumaa
keedii samaa waxaan ku arkay buu yidhi oo yacnii ka mid ahaa imaadatu ladaa cani dariiq waddada oo xumaanta baale markaa iyo dhibka laga zuuliyo waa acmaashii wanaagsanadii ummaddani ay lahayd oo nabiga la tusiyey sala allahu calayhi wasalam acmaasha xun oo la itusiyey ummaddani leedahay waxaa ka mida buu yidhi masjidkii oo waa markaa xaaka ama candhuuf lagu dhex tufa waay masjidkii beydkii ilaahay oo in la nadiifiyo in way markaa la carfiyo in la hagaajiyo loogu talagalay in asagii baale markaa candhuuf lagu dhex tufo taasaa la igu tusay buu nebigu sala allahu alay slam inay ka mid tahay sidaa darteed markaa waa udub dhaxaadka diinta xagga shareecada marka la fiiriyo waddooyinku hadda nabigu calayhi salatu wasalaam xadiidkii saxaynka wuxuu yidhi ruuxa insaanka ahaa wuxuu ka kooban yahay 360 xubnood 360 kaa xubnood waagii baryaba waxaa laga rabaa ruuxa mahadnaqoodii oo waajibku ah mahadnaqii markaa xilkaa ku saaran iyo shukrigaa ilaahay xubnaha uu ku siiyey uu kuu abuuray uu kaa rabay subax walba waxyaalaha kaa gudahaya markuu nebigu tirinaya calayhi salaatu wasalaam oo tahliishii iyo tasbiixdii iyo taxmiiddii wuxuu ku soo daray haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam waddada oo laga zuuliyo dhibaatada iyo wixiga ina iyaduna ay ka mid yihiin markaas riwaayana wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wayumiidu aladaa cani dariiqi sadaqa bimacnaha waimaadatu aladaa cani dariiqi sadaqa inaa dhibka laga zuuliyo waddada wax alla wixii uma dhibi kara hadduu dhagax yahay hadduu qodax yahay hadduu geed yahay hadduu laf yahay hadduu wasaq yahay wax alla wixii bani aadamkaa dhibi kara oo ama way aday ku dhibi kara ama muditaan ama qurmoon wax kasta oo waddada laga zuuliyaay waa sadaquu nabigu sala allahu calayhi wasalam oo sadaqooyinka xubnahaaga iyo jidhkaaga mahadnaqoodii lagu gudanayo ayuu nabigu ku daray sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku caddeeyey waddada ciddii ilaalisa xuquuqdeeda inay baado marka ahlu janno tahay ilaan jannada maxaan doonanaynay oo raadsanaynay waddada ilaalinteedu waxyaabaha baado marka lagu janno taga ayuu ka mid yahay weligaa nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waayo markaas ninbaa wuxuu arkay asagoo waddo socda waayo markaas qodax ama laf dhex taalla waddo markaasaa wuxuu yidhi waayo markaa shaygani wuxuu dhibahayaa muslimiinta waa inaan dhibka muslimiinta aan waddada ka zuuliyaa markaasuu ka zuuliyey ilaahay baa ku shukriyey jannadana geliyey nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiix muslimna waaba ku ahaa nabigu inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fi ljanna في شجرة قطعها من ظهر الأرض كانت تؤذي الناس بل أفير سدا لقد رأيت وحان أركي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ننبان أركي يتقلب في الجنة جنة تحت وحين هاي نين جنة دي بعد مركز نحن كل بدن سكت الدباران بدن سكت صعدة جنة دي نحن هو كل جنة قلي بل أفير سدا هذا وحان أركي النبي عليه نين جنة ويمركز نحن كل بدن ويمركز أقول لابان هاي في شجرة جيد درتي بسبب الشجرة جيد ويمركز قطعها من ظهر الأرض جيد ويمركز إيا قضح لبيسي مسلمين تا ووددي كجوية وكهجاجي كليو جنة كقلي النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم من بوه لكن جيد داس وكون جنة متالي بل أفير سمركه هل قضح أو كجويسي ويمركز أما أتكقاضي وددي أما هل تجحد كقاضي inaad ku janno gali mar hadduu nabigu cadeeyay calayhi salaatu wasalaam haddaad dhigta ka warran marka bilcagsi mafhuumku haddii waddadii xumaanta haddii laga zuuliyo in lagu janno tegi ay caddaatay iimaankaagu inay ku sugnaan la caddaaday sadaqadaada marka inay kuu tahay ay caddaatay maxaasinta ummaddan inay ka mid tahay ay caddaatay ka warran marka ciddii ayadu dhibkaas keenta oo qodaxdii keenta oo laftii keenta oo dhagaxii keenta oo mooskii waxay ku tuurta oo bulacadi ku soo furta ayadu marka maxay noqon kartaa cagsi ba ayaduna mudan kartaa waa la garanayaa arinta cagsigeed baa soo baxay saadarteed
شريعة مال أدق بيك إساكت إلى آلية ويودوينك هذا صحابي النبي أبو برزة الأسلمي صحابي اللي أورنجري رضي الله عنه يا النبي قويم صلى الله عليه وسلم دردارا كوبا والنبي مركز البضي وحول يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به رسول وحادي برتا شيئا انتفاع صدق الدنيا خرب وليبا علمادو كل كي شرح أيان حديث صحيح مسلم باصو صاري حديث مركي شرح أيان آخره كو شرحان إلا إن صحابي قاسي وح أنت بدنو أبيري شيء دنوي أماه شيء أخروي أوي وحكاه الله وحق الدين ته يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به رسول شيئا انتفاع صدق وأن آخره إذا أبح صدق هو أنا أكسن بعد مركا الدين إبربان إريبوي النبي صلى الله عليه وسلم يعزل الأذى عن طريق المسلمين بس دردارك إذا سلو قابل لبعتذا كالزول وضد المسلمين بلو فيرسل صحابي لنا النبي يقول يا رسول الله وحان دوني وحي أنفع الدنيا أخرب إن دردارنتو أو تصوب إبرتو تعليمت النبي سيمحين قطي يعزل الأذى عن طريق المسلمين نبكى المسلمين تبع لمركا وضد ذا كالزولي بس انت النبي قابل عليه الصلاة والسلام waxaad marka dareemi kartaa heerka ay geysay shariicada islaamku way marka wadooyinka iyo ilaalintooda wadooyinkuna xagga shariicada kaliya ma xagga xisiga waa dareemi kartaan cid wada ka maarmi karta male oo ama magaalaha ahaato ama miyi ha ahaato ama tuulo ha ahaato ama caasimad ha ahaatee maaliba meeshay ka wadooyin wanaagsan tahay way ka wadooyin waasacsan tahay oo ka wadooyin nadiifsan tahay bay ka wanaagsan yahay shaki uu ku jirin hadda xaafadaha magaalada xaafadii wada la'aan ah dhibaatooyinka haysta waa la dareemi karaa waa wax xisi ah wax u baahan ma aha sharci kaliya in la aago oo waa maxay qoyskani wuxuu u baahan yahay kii xanuunsada inuu qaado soo baabur lagu qaado loo baahan kii xanuunsada kii dhinta in la qaado soo uma baahan kii biyo in loo u keeno u baahdo soo in loo keeno biyo uma baahan dab iyo dhibaato haday kacaan soo in laga damiyo oo laga uma baahna hadii baad marka dhibaato dhacday in loo soo gurmado meel loo soo maro soo uma baahna wada sinaba markaas loogama maarmi karo waa wax xaqiiqo ah sida darteed marka shariicadu say u ilaalisay inaan annaguna aanu ilaalino oo maamulku uu ilaaliyo oo maamulku wadooyinka meel joogaba xil adag iska saaro oo yaanihi baad markaas bulshadii waa shacab madooyinka loo ilaaliyo oo shacabku wadadiisa u ilaashado ma aha wadada xilkeedu maamul kaliya inuu saaran yahay ma aha shacabku shakhsi kastaba waxa waajib ku ah inuu wadada ilaaliyo oo sharciga islaamku ku ilaaliyo oo lafihiisa wadu ilaaliyo oo ruuxu wadada u laxjaclaado dad muslimiin ahaanahay wadada waa inaan laxjaclo ay inaga hayso saad gurigaaga iyo booskaaga ugu laxjacloon wadada inaad ugu laxjaclato loo baahan yahay maamul baa hagaajin iyo maamul baa wax ka sugaynaa iyo ma ay arintu ma ah maamulku waa waajib saaran inuu hagaajiyo laakiin shacabka laftiisu inuu wadooyinkiisa iyo shakhsi walba inuu hagaajistay waa waajib diini ah sharci ah xisi ah urfi ah intaba ah sida darteed waxaan u baahanahay inaan wadooyinka u laxjacloono laxjacladii waxa kamida booskaaga saad u ilaalin oo laga yaabo taaka inaadan uga tagin wadada inaad taaka kamida aad qaadato lama ogol waa inaad u ilaalisaa haddaad guri ka agdhisanayso wadadii oo gurigaagii wada uu ku sii jeedo wadada uu haysto haba yaraatay inaad ku durugto lama rabo hal taaka inaad qaadato lama rabo hal taaka wadada kamida haddaad qaadato oo gurigaagii dhismahaagii aad gashato waxaad noqonaysaa nin dulmiyay muslimiintii oo dhan dulmiyay hal ruux ma dulminin illa hal ruux ninka dulmiyay nabi wuxuu alayhi salaatu wasalaam man dalama qida shibrin taako way wax la eg oo ardadii kamida ninkii dulmiya duwiqahu 7 ardina yawm alqiyamah todoba arda kurka loo gelinaya marka ruux kale markaad soohdin riixdo oo taaka aad ka qaadato todobada arda kurka lagu gelin baalay wadadana muslimiinta oo dhan bay ka dhaxaysaa muslimiinta oo dhan baa dulmiday hal ruux ma dulminin marka waxa loo baahan yahay inaan wadada la iska ilaaliyo oo ruux intiisan u dhisto waliba khusuusan dadka injineerada ah oo dadka guryaha u dhisi inay ku baraarugsanaadaan
oo dadka caamada qaar baaban baraarugsan aniga isoo martay anaan ku baraarugsaneyn anigana isoo martay dad ba aan caamadoon baraarugsanayn baa jiray ruuxa booskiisa intuu ku eg yahay inuu u cadeeyo oo wixii kale waa wadadii uu u sheego uu yiraahdo ma dhisan kartid ka injineerkii oo haddana ka injineerkii bulaacadaha baa dhismaha yaa lagu soo furaa wadada lagu soo jeediyaa injineerku ilaan asaga waa baraarugsan dadka qaarkii ma baraarugsanaba guri iska dhisan haya ama waa caamo ama ma baraarugsanaba ina marka bulaacadihii wadada intii afka loo saaro oo lagu soo furo way marka lagu soo daayo dadka wax dhisay injineer laftoodu inay ka qayb qaataan baa la rabaa dadka maalikiinta wax dhisanna waa inay arinta ka qayb qaataan ilaan dibka wadada ka zuuli baa lagu dibka wada la soo doono ta kale wax alla wixii dib ahoo wadada aad u geysato naf iyo maalba wixii ka dhasha adiga korkaaga adduunka kharab ahaan haya tusaale ahaan bulaacada hadda aan soo qaadanay bulaacada wadada ku furtay waa ka aragteen dhulku markuu ingegan yahay meeshani markay qoyan tahay baabuurtiiba kolkay marto dhulka way ka hoos mari ilaa qoyaanba in badan lagu maray dhulkii kale oo ingegan meeshii god bay noqonaysaa god markay noqoto hadiiba de baabuurkii soo maray uu jug ku yiraahdo xataa ruux haduu kolka isqaniino jigta oo yiraahdo isqaniino oo carabka uu jaraaxa iska gaarsiiyo ruuxi bulaacada lahaa baa lagu leeyahay hadduu goo carabka xataa isaga lagu leeyahay adduunka kharab bulaacada hadduu ruux ku kufo oo ku jabo isaga lagu leeyahay hadduu baabuur jig yiraahdo ciladi gaadho isaga lagu leeyahay haddii maanta aan laga goynaynin oo cid ku daba taagan ama maamul ama kale oo aad danaynaysa una jirin allah asaga ishiisu la ta'khudhu sinatun wala naw maanta maalin aad ka tabar darantaa laga goynaya oo lagu oranayaa bulaacadaadii wixii ku dhacay iyo wixii dhibay gaaray intaasoo dhibaa gaaray markaasa soonkaaga iyo salaadaadii iyo sadaqadii aad sameeysay baa loo qaadayaa muslimiintii iyo dadkii wax ku gaaray baa yalla siinaya macnaha bulaacada miisaal baan u soo qaaday mooska intii la fiiqa la iskaga soo tuuri dad baa dharka alaabtii baa marka intay waxayaan wixii qubka aad iskaga soo tuuri dad baa intay xoolo qashaan lafiyo wixii soo haray wadada ku soo tuuri dad baa intay xoolahood digada ka soo haraan iyo wadada dhexdeeda digada ku soo tuuri walaadu fiiri hebel ma aha wax la oran karo waxa soo dhan oo dib ahoo wadada lala soo doonan waa xaraam weeye shakina kuma jiro in laga ilaaliyo in la nadiifiyo wadada waa waajib وكان هذا أن شيئين وحاكمده إلا ودده وحلوه تلقى المسلمين ترى إن انتفاع صدان يبل شو رنبا مسلمين تكلي خاصكم هه انتفاع سجاس ودده وحلوه تلقى المريتان ودم حاهد وجدد إن لو تلقى إن لم مره هذه مركب ودده مركب انتفاع سنة يسوع إن هذا ضدك مره هي هذا هبيراته انتفاع سياو نبقى نجارسيني بالغ مارمان habayrat inuu dib gaarsiinay baa laga maarmaan tusaalahan wadada dhinaceeda fadhiisatay kaba soo qaad kuwan baad marka suuqa wadooyinka dhinacyadooda fadhiisanahay ka soo qaad wadada dhinaceeda haday wadadu waasac tahay oodan waxba ku dhisin in wax lagu dhiso wadada habayrat lama ogolo meel yar oo fadhiya deked yar wadadu si kastoo waasac u tahay deked yar inaad ku dhisto waa xaraan mararka kamida baa laga ruuxna ku turanturood mar baa laga yaabaa ruuxu baahnaa maritaankiis inay ka celiso meeshana maritaan baa loogu talagalay saadarteed haba yaraatee wax lama dad baa intay way marka gurigooda dhistaan hortooda laga yaabo ama dekam dhul idil ama dekad ama sii dhisayaan xaraam weeye ma aha xataa shay iska caadi waa xaraam inay dadku sharcigooda ku baraarugaan waa laga maarmaan dhismahaas ayadoona lahayn hadii aad waxoogaa wadadii waasac agta fadhiisanayso laguma diideen laakiin bi shardi waa inaad dadka marahay aadan dhibayn waa inaad ciliili ku keenin waa inaad dib ku keenin ama hadaa tiraahid bada wadada dhaxdeeda waa ku ganacsan ama wadadii awalkii horeba ciliili ahayd inta dhinac dhigana dhinac dhigtay wadadii ay ciliili noqotay maya lama ogolo shariicada islaamka ma ogolo ganacsiga noocaasina waa xaraam aad dadku ha u maqlaan ganacsigu waa kasabyada ugu wanaagsan nabigeena wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam kolkii la weydiiyay an adyabil way markaas kasb dadku waxay wax ku kasbadaan oo nolosha ku kasbadaan ka ugu wanaagsan ugu xalaalsan ugu qiimaha badan ugu fadhiga badan nabiga yaa la weydiiyay wuxuu nabigu kaleey salaatu wasalaam amalu rajuli bi yadihi wa kullu bay'in mabruurin bu nabigu kaleey salaatu wasalaam shaqooyinka la qabsaday adduunyada lagu tabcado shaqada ugu horeysay waa ruuxu wuxuu gacantiisa ku qabsado haduu beer qodan hayo haduu guri ka shaqeynayo haduu guri dhisahayo
shaqooyin ka asagu uu qaban hayo si nadiif ah u qabto waxa aad yaxanuujisa dadkan xamaalatada ah oo xamaalan haya oo guryaha dhisi oo shaqada haya shaqadoodu qiimaha ay leedahay iyo dhididka ka dhici iyo siday nadiif u ahaan lahayd iyo khiyaanada ku dhaxwadaan ayagii baa iska hadlaynay waxbuu khiyaani waxbuu isdaba marin markaasuu asagii shaqadii mabruurka buu ahaan lahayd adyabul makaasib uu noqon lahayd buu asagii baa dayacaya oo ku ciyaarahay markaasa khiyaano masjidkan maxaad meel kale ka sheegaan hadda ku jiro kuwii dhisayaan u fiirsanahay waxa isdaba marinayaan waa beed ilaahay bay dhisayaan lacagna way ku qaadanayaan ujradii way ku qaadanayaan waana guri ay dhisayaan markaas khiyaano sameynayaan waa fiirsan meesha wax ka marahayaan wa kullu bay'in mabruurin bi nabiga alayhi salatu wasalaam bay' kasta oo maqbuul ah oo hayba yar lagu baarinimo sameeyo dib loo geysanin haba yaraatee ahkaamtiisii arkaantiisii shuruudiisii bay' khiyaani waxba la dhaxgelin bay' sidii la rabay wax loo cadeeyay waxba aan la qarinin waxba aan la qalloocinin oo xalaal ah waxyaabaha lagu kasbado waxyaalaha ugu dibsan kamid ah ku shaa alayhi salatu wasalaam bay'aas wadada dhaxaad ku beecsanayso oo dadkii wadada mareed ka calisay ma soo galahay bay'aas maxay waba xaraane haddaaban idin aan sheegaynaa waaba xaraan wadada dhaxdeeda intaad ku ganacsato inaad dadkii wadada ka xidho ama ma aheebaad marka wadadii aad cudiri geliso haddaadan xidhin kala ku tahay xaraam way هذا شيء حرانة مياد كو قاعد بعض أمة لوناقي يهرمر رجال لقى مقب ورمساكين باتين بيل كينا سوى وناكسن أراسده فاتقوا الله وأجملوا في طلب النبي عليه الصلاة والسلام إله كعب صلى مركز راسنا يسان وح سوى وناكسن وح أراسده مال حلالة إلهي برزقك هو بركين ورزقك حسينه مال حلالة وح أراسه ضدك ودوينك هكحدين وضدك عجل قلينين مال أما مامل أسمي أما مئها إسكبنانة أما أذوق بقى لا هاي آير هاللو جنعصده ودوين كل حلو لو جنعصان هاللقط دور صده من بنانه وح أنت أبغى مركها أيضا الإرادة اللي ودوين كم مامل كمان مرمان أيضا مال الجوجة بفوضى وحكون نولان كره إنسان جرين والسنة بأن فوضى يا واي مركز والضفر أن لو مال بكم مرول بمامل يا ندام أن لو مرمينين حدنا ودوين كون ندام كمان مرمان نظامكم مركب مصلحة وضد إنه إلى اليوم واجبكوا ماشان وداكوا هبون ماشان ودا مريسة وضدنا انت صار لقربا وضدنا سيداوي ما ملكا مركب وأوامرها أسمية يا نظامك أسمية إلا الراعي وحوي وواجب شرعي إلا النظام الآن وحمد نولان كرو وحمد هجاي كرو نظامكم كودوني بها أهل كل هذه وضدي إلا النظامين هيو وضدها مركب إن إلى شرط ومامولكي لو راعي واجب ينقض حتى اسكبدا ويفدي iyo wax kaliya goyn wadadii soo ma qaadaysi tusalahan baabuur wada ka soo qaad baabuurtu soo nanaam looma sameeynin ka sii socda ka soo socda mid walba haad ku leeyahay haadka inaad ilaalisay waa waajib xisi ah waa waajib sharci ah maxaa yeelay naf baad wadaa maal baad wadaa bani aadam baad wadaa adiga naftaadii baa kamid ah waxa la rabaa nidaamkan khatar inaadan gelin oo aad ilaaliso haddaad si xun meel xun u istaagto ama meel xun aad marto dib ka yimaado adduunyo aakhira waa lagu haystaa ila nafti waxa laga yaabaa si dhib yar baa dhig islaam lagu gali maxaa yeelay nidaamka haddaad raacdo adoo badbaadi lahaa haddaad nidaam xumo iyo khalad aad ka soo samayso oo kolkaa deetana dhibaato u ka xaso dhibkaasi adduunyo aakhira aad kugu soo laabanaya saa darteed marka wadooyinka in la ilaaliyo oo nidaamkooda la raaca laga marmaan dadka baadkood waxaan u maleeyaa waxa u yaqaanaan waayo marka qaadicu dariiq dadka qoryaha qaata ee dhuljiifka sameeyo mooryaanta wado u yaqaanaan war siyaalo badan buu ruuxu way qaadicu dariiq ku noqon kara oo waa maxay haddaad wadadii goosatay muslimiintu baad markaas ay marahayeen ama aad xiriiriday ama aad ku durugtay ama bilaacad iyo baqti aad dhigtay dad baa intay soo qaadaan baqtiga guriyada waqtiga wadada bartikooda dhigayaan baqtiga hawl fiiri waa baqtigii bay wadada bartikooda soo dhigayaan gurigiisa ugu baqtiyay iyo xaradiisa iyo wadadii soo dhax dhigayaan qaadicu dariiqnimadu ma aha in way qori la qaato dadka wadada loo diido wax alla wixii wadada carqaladayn oo dhan baa qaadicu dariiqnimadii ka mid noqonaysa saa darteed waxaynu u baahannahay inaynu ilaalino shuruucda iyo aadaabta wadooyinka inaan ilaalino saan uga fakanno naaru jahannamo waayo markaan una helo jannadii annaguna bulsho nool oo nidaamsan oo qurux badan si aynu u noqonno waa laga maarmaan marka nidaamkaas oo dhan bad in la ilaaliyo wax laga maarmo ma kolkaad u fiirsato bulshada
إلا روحه سومالي وحيلا كروا يلوا وضع إندو بلشة مركز أحسعته روحان درين لهنا سوى حبر دمان روحان درين لهين هذا إلا في ماشن تال هدو بختيال هدو دغحيال هذا بلعتها الدم بكمله لحد كاني علي أبار بموجي لكن روحي درين له ودينتي إسلام كأودن قنهاي ودتك مسلمين تأودن قنهاي وبلشدي أودن قنهاي والنظام كي أودن قنهاي واعتبارنا هي ودوين كنا يسوق قنا فيريائي على الحباب بدن بكل كل ماي أو إله وياه على الحباب بدن بكل كل مي سوق ليدو دكان مذوذا بخار ذوذا إيا مالها أيجو إليهن وحال الربا إن يبغى المركب كو أكادان هدي بعد المركب لا أقرأ إن يرى هرفريسيا بش وحشرد وإننا وددوا أين عريض نقول الدبين تاسع شرد جالس ويال هذا علماء الإسلام كلهم واتفاق معه إلا محاولة لو طلق المريتان ماشان أدوق واحد جت مريتان كوالد يدوق وكبر يسوق وأنا شقدت النايد اللي سميه مسلمين تقولون كده عايز كل جدوي ضد كان عن بخاري إيه بعد مركب عن بأهين هوا يعني دكامل اللي أيجو قرب هذا تضعه أو لقى يابو ورد تضعه وضعوا يعني كل حساب تمن والمسلمين باتهين حقوق ذو ودوين كإلالي أو نبي وحديث صحيح هو كل عليه الصلاة والسلام صحابة ودوين كهذا فريساننا الله الرسول كمان مار الله وان سقول أنكو سنة كل كحقوق ذو إلالي النبي صلى الله عليه وسلم ودوين كحقوق ذو إلالي لي هذا إذا كم مار من ودذي حقوق ذو إلى لسان أو ميل عن عديل أهين أو ميل عن وضع أهين إن وحين كو عد ستام اللو بهاي هاي إن المسلمين تكون بتان أما ودذ كجويسان هرمر كو قاري ميسان مسلمين تنا ودبيسان نظام حمائي قابدر هنا انت بوي كإيمان هيسان وركيغا مركا waxaan ku soo koobahayaa dad muslimiin aynu nahay inaan dadkii aan muslimiinta ahayn waxay fahmeen oo noloshii nidaamkay fahmeen inaan anagoo muslimiina fahmi weyno anagoo oo nabigu uu inalahay warooy wadada markaad ilaaliso waa ilaahay baa dambi dhaaf ku siinay fiiri sadaqay ku tahay bal u fiirso waa waxaad adduunyo aakhiraba intifaacsanayso waa waxaad jannadii rabbi ku heli waa iimaankaagii bay kamid tahay انت النبي يكون معاني قال وحي قراتي والنبي محمد بان وركهين ان ادغي اد غران ويدو واي عقلي حسيغا او كو شقين وايو او كيبا شرعيغا علمي شرعيغا او كو شقين وايو او هبا يراتي سار اسغا سكون هورينا وان او ادني او ماينان مهدينين هدا كدبنا waa la eedi doona oo lama mahdin doon wax la eeday lama mahdini bali marka dad yahow dhamaanteen ninkii guri dhisan ninkii dukaan le ninkii wadata ah ninkii maamula ninkii shacaba waradooyinka la ilaaliyo oo xuquuqdooda la ilaaliyo oo wadooyinka yaan lagu durkin oo wadooyinka la ciriiriyin oo wadooyinka yaan wasaq la soo doonanin oo wadooyinka baad markaas yaan way dadka laga goyn intii waa lagu ganacsan la yiraahdo intaas oo dhaniba markaa waxay noqonaysaa xaraam wax shaki ku jirana ma marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dad muslimiin aynu nahay سيدان سكة خير بدل إنه إلهي نوجب بدله الحمد لله ثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال